kulanka waxa ay kooxaha qaban qaabilay wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo baa ku qayb galay wasiirro xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Biikole odayaalka dhaqanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamulka deegaanka Daynuuna iyo qaybaha duwan ee bulshada guureen weba kulanku ku hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mustafa Adafa wasaaradii geek wala barnaamijkan qaban qaabad waliba way dabagalka eta mis follow up ka eta shirkado kor u intan qobsoomi shirkaas oo waxyaabo oo intii codsi ah ku bixin deegaanka Daynuuna intii lagu qabado codsiga hay'adii wasaaradii iyadoo la shaqeeyay dadkii la tira galay barnaamijkaas ay caqabado ku kooyeen caqabado waasin intii isku wareysan oo hay shirkaasi waxyaabaha ku bay ku mid ahayd degmada intii oo Daynuuna intii la deersi adeegyada oo bulshada gaar ahaan caafimaadka walbarashada iyo dhamaan biyo intii wala la deersi wasiirka wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Ilyas Al-Nuur oo dhinishay kulanku ku hadlay iyo boos bogaadiyay in go'aanka madambeys ee lagu qaado halan halowka xaaladda wadada xiriiryaasha degmada Baydhabo iyo deegaanka Daynuuna deegaankan dhibaato badan iyo haysatay horumar la'aan oo wali service bini aadan aan baahanay in la hayne isbitaalaan la hayne iskuulaad aan la hayne dhibaato haysata markasna caqabada la kulmaasay oo wali liin qobada la hay liin suubi la hay jidkan la suubi waysinya dad badan marka may leeyahay caqabadka geeka marka may fadaane odayaalkii maadaama ay roogan gudoomiyaalkii roogan xildhibaanadii roogan wasiiradii roogan dadkii bulshada ku jeedi dhamaantii oo shal duwan roogan Daynuunay intii wali magaalooyinkan oo bay hoos kooyan dhamaantii oo helayaan intii hel service kilinka baahintii liin suubi dadna la garab surunina intii hel marka may fadaane antii una geeka go'aan adag antu ku luban oo kala ka dhiifado la ka rigtalada ma matiro leere mayni dhiiday ma tanfacu suyuuf bila rijalin sayf may taras dadka dagaalamo on lahayn geeka dhangnaa hogeekun wal inta ku saaro waa inay Daynuuna in walin qobad waayo saaska baabaad ankarani dhiyaasay ankartini dhidi lahayd dadka kale mikrid leereen hoob anta fadhiin odayaalkan imaal xildhibaanadan imaal wasiirada dhangna una geek wal xaq saaro waayno go'aan ka saaro waan jidkan la furo waay Daynuuna ilaahay nahris gabagabada baa kulanku ku hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Abdi muddo toddobaad oo kale ku horeeyay shir noocan oo dhinac amniga lagu ka hadlay isla arintaas magaalada lagu qabaday hatana kilamaadu dadka may leeyahay mas'uuliyiintii odayaashii iyo maamulka deegaankii la isku araga watana may la sameeyay kor leerko marka way fadaanahay inay dadaal badan gelino dhan aragta anis sheegna oo meel salka horumari karo la ka dhaqaaji karo aqabadaas jarta wali furufadi oo aqabade si aanay u hal Maxamed Abdulqaadir Cabdiraxmaan warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed Baydhabo